Ertan dheere haddaad dunta maari lahaa sida dheftaan caloosha ku dhiigaan lahaa وايد سلامي أصحابتي دقالي أهبال والبأجوبتان كسو دوادا جنرال كيني سعادة سمارة طبعا الحمد لله بينا فلوق أسو كسابسن حفلة أستان ميديا أو حفلة أي دمان شقالها أستان أي مركاسي كو أبال مريسو فلوق أنا هل كانوا بلابنيا
habeenka ciidda ee astaan 2022 anagoo aan idinkaga mahadcelinayna kasoo qaybgalkiina habeenkan oo sanadkiiba mar aanu dhigno ayadoo loogu talagalay abaalmarinta shaqaalaha kala duwan ee astaan barnaamijkeena wuxuu isugu jiri doonaa qaybo kala duwan kuwaas oo qayb ka ah hadal jeedinta agaasimayaasha qaybaha kala duwan ee astaan sida astaan hidaaya astaan music astaan film astaan sports astaan TV iyo sidoo kale qaybta astaan customer care iyo qaybaha kala duwan ee astaan ay agaasimayaashu waxay soo jeedin doonaan hadallo kooban oo ku aadan waxqabadkii muddadii sanadkii ugu dambeysay ay soo qabteen ayadoo caawa way kala ay tahay abaalmarinta shaqaalaha kala duwan ee astaan barnaamijkan sidoo kale waxaa ku jiri doono hadduu ay biiraan sida caadi ahaydba qaybta abaalmarinta qaybaha kala duwan ee shaqaalaha astaan qaybta productionka iyo qaybaha kale ayadoo ay sidoo kale uu jiri doono best of the best qofkii ugu wanaagsanaa guud ahaan shaqaalaha astaan sanadkii ugu dambeeyay ayaa jiri doono sidoo kale waxaa jiri doono qofkii nasiib uu markaasi ku xusnaan doonaa abaalmarino kala duwan oo ay qayb ay ka yihiin TV-yo mobilada noocii ugu dambeeyay haddii ahaa lahayd iPhone 11 Max Pro 12 iyo sidoo kale abaalmarino kale oo qaali ah oo ay qayb ka tahay qofkii nasiibka 4 tigid oo full package ah oo qofkii nasiib u hela uu si toos ah ugu degi doono caasimadda Kigali ee Rwanda magaaladii cagaarneed oo ay maamulka sare astaan ay ugu talagaleen inay ku abaalmariyaan shaqaalahooda kala duwan maanta waxay maraysaa 260 shirkadda laftirkeeda waxaa laga keenay meel fogaa laga keenay intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo howlaha aan qabanno way kala waaweyn yihiin howlaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa oo sanadkan aan qabanay ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa nala joogo wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha waxaa kaloo nala joogo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo runtii labadaba xoog geliyay in uu dhaco tartanka saas u qurux badnaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo macaamiisheena sharafta leh oo halkan ku sugan oo ayagana mar walba nala socdo na dhiirigeliyo noo sheegana wax naga khaldan hadafkeena astaan ahaan waxaa weeyaan in la helo content ee Soomaaliyeed haddii TV lagu hor keenaa daaratid way adag tahay in uu qofka helo content ee Soomaaliyeed waxaan ka shaqeyn doonaa oo aan u create gareynay
kanaalada kala duwan aad arkayseen in aan helno kontonka Soomaali ee leedahay oo si fiican looga shaqeeyo
sanadkii 2020ka waxaa gaar inoo ahaa in muddo 5 bilood ah ay duruuf ka baxsan awoodeenna iga xayirtay howlihii aan astaan u hayay. kala maqnaansho dheer wuxuu walwal badan ku abuuray dhammaan shaqaalaha, ehelka, macaamiisha iyo asxaabta astaan. ilaahna haddii waxaan ka soo baxay xaaladaasi annagoo guulaysanay, astaanna ay kasii awood badan tahay intii aan marnay. istaagiina iyo inaad sii labanaabteen howlihii shaqo ee aad shirkadda u hayseen. xaaladaas adag ee aan soo maray waxa ay ilowsiin jiray dadka aan la kulmayay oo intooda badan u riyaaqsanaa waxqabadka astaan. way u adkaan lahayd in aan ogaado qiimaha ay astaan bulshada ku dhex leedahay haddii aanay xaaladaas nagu dhicin. aysan ku imaan howl aan aniga shakhsiyan qabtay oo keliya oo ay ku timid shaqo wadareed ay qabteen dhammaan qaybaha kala duwan ee astaan iyo howlwadeenadeeda. intii aan ka bartay duruuftaas adag waxay noqon doontaa shuclad noo iftiimisa meesha fog ee aan hiigsanayno. iyadoo ay jiraan xaaladahaas adag ee na soo maray 2020kii, haddana astaan waxay ku tillaabsatay horumar weyn, gaar ahaan dhinacyada hal-abuurka, barnaamijyada, farsamada qalabka iyo tiknoolajiyada, tayeynta kartida howlwadeenadeeda, horumarinta maamulka, xiriirka bulshada iyo qancinta macaamiishaba. waa maxay ra'sumaalka ay haysato astaan? waxaan ku jawaabaa waa dadkeeda. ilaalinta dhaqanka suuban ee shaqo, hirgelinta hiigsiga astaan iyo in horumar joogto ah uu qof kasta uu sameeyo. astaan waxay ka mid tahay astaamaha soo kabashada bulshadeenna. si aan ula jaanqaadno horumarka xawliga ku socda ee dunida ka samaysay howlaha adeega warbaahineed ee muuqaalka ku salaysan, waxaynu awood badan gelin doonaa horumarka howlwadeenadeena astaan ee dhammaan dhinacyada aan kor ku soo xusay. sanadka 2021 wuxuu inoo noqon doonaa sanadkii xaqiijinta filashooyinka waaweyn ee macaamiisheenna.